Salaamullaahi calaykum asxaabteyda, waa idin salaamay. After salaan kadib, maanta waxaan halkan usoo fadhiyaa inaan kelmado yar ka dhaho waxa ka socda waddankeeni iyo waxyaabaha la isku haysto iyo sida ay maatida ugu rafaadayso Muqdisho iyo qax ka socdo waddankii. Maxaa intaasoo dhani u sabab ah? Qof caqli lahi waxaasi ma ku fikirayaa? Waa maya, qof caqli leh kuma fikirayo. Waxaan rajeynayaa in baaqan uu gaari doono cid walbo oo Soomaali ah. Waan isku soo laaban doonaa wax yar kadib. Isku soo laabasho wanaagsan, Ramadaan Kariim ayaan leeyahay. Maanta halkan waxa isoo fadhiisiyey talo wax yar ma ahan, waa wax aad iyo aad u weyn. Maxaa wax halkan soo fadhiisiyey horta? Kow, waxaan halkan isoo fadhiisiyey sidaan horeba idinkuugu sheegay, waddankii waxa ka socda wax sahlan ma ahan. Ayadoo bil Ramadaan tahay, ayadoo ummadda ay sooman tahay, haddana Muqdisho waxaa lagu tiriyaa meesha keliya ee miskiinta ay ku noolaan karto. Miskiinta ay ku noolaan karto haddii la isbarbar dhigo caasimadaha kale ee ku yaalla waddanka, la mid ma ahan Muqdisho. Muqdisho waa miskiin koris, Muqdisho waa agoon koris, Muqdisho cid walba ku noolaan karto, cid walba yaa ku noolaan karto. Hadda waxaan ugu anaga nuguma ahan, laakiin dhalintanadii aniga iyo wixii 30 sano ka yari ugub kuma ahan. Waxaan hore ayay usoo arkeen, laakiin alxamdulillah maanta waxaa Ilaahay mahadiis ah in maanta dhalintu ay wax fahmeen. Qof qori qaadana aysan jirin, qof waliba uu leeyahay maxaan qori ka faa'iidayaa. Meeqa aniga ila eg maanta oo maxaa heeday waxbarasho la'aan ah, yacni shaqo la'aan ah, yacni rajo la'aan ah, oo xitaa rajo aan qabin xataa aan ka qabin xataa waddankii. Marka horta maanta alxamdulillah heer waan gaarnay, heer waxaan ka gaarnay dhinaca caqliga, laakiin haddana waxaad moodaa in si dadkii weynaa ay u qaabdaran yihiin. Qaabdaradan waxaa ka mid ah hadda waxa barbareemkani wado ama fidnadani saadaalinayay 8 February markii la gaaro dib baa loo noqonayaa sheekadii ahaydii weli way wadaan. Kuma jiro dadkaas dagaalka wado oo mucaaradka ahi, kuma jiro qof ilmihiisa ay joogaan Muqdisho. Ilmihiisa qof ay joogaan Muqdisho kuma jiro. Qof waliba ilmihiisii meel ayuu kusoo hubsaday, ayuu kusoo hubsaday oo nabad ah oo isku haleyn karo. Ilmihiisa waxbarasho ayay haystaan, qori uma rabo, laakiin asaga is almost done. Asaga waxba nolol kama rabo because of dadkan hadda isdiriraya waa dadkii dowladdii ay wax soo bartay, lacag la'aan wax ku soo bartay. Aqoonta ay ayaga heleen aniga maana helin, aqoonta ay ayaga heleen aniga maana helin. Waxa maanta is haysto oo isku tanaasuli la'ay waa dadkii dowladda ay wax soo bartay. Dowladnimo horta ha xumaato ama ha fiicnaato, laba jeer dowladnimo wax ka wanaagsan ma jirto. Dowladnimo wax ka wanaagsan ma jirto. Tusaale ahaan hadda maanta dowladda maanta joogto oo shaqaynaysa, inta qof ee shaqaale ah ee u shaqayso
ama inta qoys ee ay dabka u daarto lama tirin karo. mucaaradku intaas in la mid xitaa ma sameyn karo. Sideedaba adduunkan hadda waa la horumarin. 1991 lama joogo hadda, it is 2021. xilli qori la qaado ma joogno. Waxaan xasuustaa 2010kii iyo 8kii iyo 9kii mahmaa waxaa socota la dhahaya Buddha can take the pen. Hataa tii miyay rabaan inay soo xasuusiyaan. Waxaan xasuustaa mahmahdaasi meel walba ayay ku qorneyd, meel walbo ayay ku qorneyd. qoriga dheg qalinka qaado, qoriga dheg qalinka qaado, ayadoo English ah iyo ayadoo Soomaaliya labadaba isku qorneyd. Intii taqaano haddaa Hiiraan aad soo marteen walba meesha caanay ka tahay Buddha can take the pen, ayada caanay ka tahay magarad. oo markii dhalinyarada waagaasi 2008kii wixii socday qalalaasi wixii ayaa waxaa lagu boorinayay in ay qalinka qaataan, qoriga dhigaan, wax walbana miiska wada hadalka imaadaan. 2008kii hata 2021 la marooyaa. waa inay wax isbedelaan, waa in ay wax isbedelaan. maanta aniga ma ku faraxsani in qof Soomaali ah uu dhinto. qof aniga kaleentaa naf inuu waayo ma ku qanacsani. dhiig inuu daado ma ku qanacsani. qof muslim ah sooman haddii aan waxba u tareynin inaan dhib geliyo ma ahan, dhib inaan geliyo ma ahan. dhammaan waxa meesha isku dagaalayo waa dad og macnaha ama qiimaha ama advantage-ka ay leedahay dowladnimadu. inta had is haysato macalaa dowlad macalaa mucaarad way garanayaan qiimaha ay leedahay dowladnimadu. markaasa inta had is haysato qof aan soo marin kuma jiro, qof aan soo marin dowladnimadu kuma jiro, qof aan soo dhadhamin kuma jiro. laakiin aniga ma soo dhadhamin iyo inta ila mid ahi macnaha dowladnimada mana naqaan haddii nala weydiiyey. saa ay tahay haddana ma rabno inaan qayb ka noqono dagaalkan sokeeye. haddana si falwaa haddana ka dhacayo mar labaad wadankeeni. insha Allah waxaan rajeynayaa inay soo afjaranto. qablo uma baahnin, qabiil wax ma taraayo, qabiil wax u taraayo ma jirto. maanta ninka aad isku qabiilka tihiin xukuma sheegayo. markuu xilkaas koro isma taqaanan. just one man one food xitaa waxay rabo hala dhigo, haddii la rabo doorasho dadban hala dhigo, waxba nagama gelin. laakiin horta waa in dowladnimada ama wadanka nidaamka kala dambeyntii sinsiraadka wadanka waa inuu kusoo laabtaa. sinsiraad la-aan wax kala soconaya ma jirto. muhiimaddu horta waa in sharciga la dabaqaa, sidiisana loo dabaqaa. waxaad arkaysaa nin halkan midige ay yacni uga taalo xidigta calanka buluuga ah ku sawiran. haddana waxaa kaloo arkaysa asoo haddana wato calankii qabiilka oo calankii gobolada. ma dhahayo labadan calin inta isbarbar dhigto keebaa saxan, keebaas marka hore ilaan wax walba way kala sarreeyaane, keebaa sarreeya keebaa hooseeya. anoo calankan buluug ah ujeedo maxaa calan kale igu wato, haddii Puntland noqoto, haddii Jubbaland noqoto, whatever ee ahaato aniga waxba igama gelin. laakiin calankaas buluuga ah unbaa ani khuseeyo. ogaadane Muqdisho 2010 iyo hadda 2021 isku mid ma ahan. 2021 cid ka maqan ma jirto. owraan 3 milyan iyo ka badan way ku nool yihiin oo dad ah. intaasoo weliba siyaabo kala duwan ugu nool, intaasoo weliba ayaga isku haya magaalada oo cidina aysan ku haynin. bal qiyaas qofka magaalada isku haya haddii maanta nabadi jirin sidee ayuu ku joogayaa? mana ahan nabaddu haddii la waayo nolol ma jirayso. nabad la-aan waa nolol la-aan. nabadaa naaf la nuuga leh waatii ku hiisi jireen wadaniyiintii hore. nabad waa waxa hata 10 sano u dambeeyay aan ku naalooneynay oo aan adduunka tusaynay inaan soo kabanayno, oo adduunka tusaynay dhalinyarada inay wax fahmeen, oo adduunka aan tusaynay in
maxay ahaaday ay waxbarashada wax walbo ay xalinayso oo dhibaato ah. haddana waxaan sheeganaynaa Islam always busy. So marka busy iyo nabadii iyo wixii intee naga mareen, aqoonta intee naga martay, islaamnimada intee naga martay, ramadaanka intuu naga maray. hadda dadkan dagaalamayn dad waxaa ku jira macallimiin ah, oo macallimiintaasoo weliba waxbarasho dad macallimiin usoo ahaa. hadduu maanta macallinkaagii dagaal diyaar u yahay, maxaad adiga u malaynaysaa? laakiin adduunku isbedelo, macallinku hadduu dagaal diyaar u yahay, annagana diyaar u ahayn, dad macallimiin ah ayaa ku jiro. dadkaas ardadooda maanta ma raaxsano, fikir ahaan kuma raaxsano, because of dhibka ayagay gaaraysaa mar waliba. Please, wadankaaga haddii aad gacan wax ugu xalin weyso, af wax ugu xali. haddii aad af wax ugu xalin weyso, duco wax ugu xali. ilaah wadankan hagaaji dheh. wadankan maanta ayuu u baahan yahay ninkii nin rag ahaa. waxaana badbaadin karo nin rag unbaa badbaadin karo. dumarku ayaga mar walba waa iska nabadoon. hooyo always is good. fidnana ma wadaan. waxa quriga qaadaan dumarna ma aha, waa un rag, waa un rag. wadankan waa wada leenahay, wuuna deeqayaa, wuuna naga badan yahay, wuuna naga soo harayaa. hal nin inaa u burburna waa laga fiican yahay. Siyaad Barre markuu baxay waxba kamaana faa'iidin. nin kastoo ani wees ama noolenba, laakiin waxba kama faa'iidin. waxaan ka faa'iidin ma lahan. dadkii Siyaad Barre ku kacsanaa waxay hadda ogaadeen inay yaa laytanii mitu qabla hada camal, hadda inay dhaheen ma karti, yacni haddaan sidaan moodin ma aanan sameynin. shalay wax ma taraayo haddaad marka hore ka fiirsanin. sida wadamada kale oo naga sii xun yaana noqon. hadda xoogow iftiin baa noo baxayo. ninkan haddii wixiisa idinku qancin, asaaba tagaayo. meesha guri hooyadiis ma ahan. annaga waxba nagama keena farmaajo walaa mucaarad, laakiin muhiimaddu waa inay dowladnimadu iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed aan si kale loo adeegsan. makarad uu qabiilku number u noqono, qabiilku uu noqdo zad u noqdo. way zad in noqdaan raba qabiilka imahan in noqdaan lama rabo, abc noqdaan lama rabo. dhalinta soo koraysay wadanka idinka iska leh. abayaashan wadankan meel fiican ugumay tegin. hadda annaga nool nahay gacanta intaas qabsano, wadankan aan ka badbaadsano. wixii khaladku wadane aan dhigno. wax walban horto wada hadal horta lagu dhameeyo. qori wax ma soo faa'iidaa maanta. hadda maanta intii istirtay dad fara badan geeriyooday. makarad sabab la-aan ku geeriyoodeen. makarad mana garanayn dadkii dilay hadhow aakhira sida u lug baxayaan. heer waxaan soo marnay la isdhaco, heer waxaan soo marnay la isboobo, heer waxaan soo marnay maxay ahaaday bacmadow haddaa wadato yaa lagu dilo. haddana bacmadow maahan weli meesha rabtaa maraysaa. bacmadow maahan meesha rabto yaa maraysaa. ol maxay bacmadow miyaa ahaa ha isoo gaarsiinne. bartadaa lagugu cunay, istaag yaa lagugu qalijinay. luuq walba waxaa saarnaan jiray liif. waa ogtihiin imisa hadda mental ahaan u xanuunsan maanta. mental ahaan inbaa u xanuunsan imisa way farabadiyeenna. meeqaa BMkii dagaalkii Ethiopia ee soo qaatay dhaawaceen, mental ahaan u xanuunsan, jir ahaan u xanuunsan. sheegay bal caqliyan xataa u xanuunsan fiiri. ilaa hadda dadkii weli ma soo kaban. dadkii ayaan weli soo kaban. isbitaallo ma haystaan. makarad madaaficdan la ridayo xagee ku dhacayaan? ilaan dhul cideel lama duqeynayo. waxay ku dhacayaan waa dad Soomaaliyeed. dad Soomaaliyeed waaye. Please, xitaa hanta israbtaan banaanka iskuula baxa. banaanka iskuula baxa. wakaasa meel cilla isku dirra. laakiin inaa shacab baabi'isaan wax macnaa ma sameynayso. shacabka waa dadkii la xukumi lahaa. shacabka Soomaaliyeed wax ka ayaan daran ma garanayo.
kii xukumi lahaa wuu dilayaa, kii xukunka raadinaya wuu dilayaa, hadhown ayaga hantaa lasii xukumaa. gacan saddexaadna meesha ku jirtaa, gacan saddexaadna meesha kusii jirtaa. Please and please hadalka ayaa idinku dheereynin. Wadankan qabqablo iyo urur argagixiso iyo maxay ahayd ururo siyaasadeed iyo wadankan ninkaan naxfi u haynin ha laga qabto. You know and I know qofka wadankan faa'iido u hayo, qofka faa'iido u hayo cid walbaa garanayso, xitaa xoolaha way garanayaan qofka naxfiga u hayo qofka naxfiga u haynin. So ma aha marka inaan kala garan weyno qofka naxfiga noo hayo qofkan dilayo, waa inaan kala garanaa qofka naxfiga noo hayo iyo qofka aan naxfiga noo haynin. waan gacanta iska qabanaa. dagaalne waxba faa'iido ma keenayo. markaasa mahmaahdii ahayd ayaan adeegsanayaa put the gun and take the pen. markaasa qalimaantii intaas waxay kusoo baranayeen hadday iloobeen hadda qoriga xasuusteen caafiyaa leeyahay. asxaabta waan idin salaamayaa, waan idinku dheeriyay raali ahaada. ramadaan mubaarak. waxaan idin leeyahay soonka iyo salaata iyo ducada Ilaaha naga aqbalo, wadankan Allah noo hagaajiyo, inta xun oo wadankan qastan Allah naga qabto. salaamaa min kulli aaf. difaaciyo dagaal diyaar baanu nahay, waxaanu duubanahay danteen labada jirkiyo bogtaan daweyn lahaa bogtaan daweyn lahaa. dumarkiyo caruurta danyartiyo miskiinta ma dilo anigu ma dilo, walaalahay ma dilo. kuwaan diirnaxaynin ee aan damaq lahayn ayaan la diriraya la dirir oo aan diidanay. dagaalada dhulkayga anoon ku daabin calan, cawaale oon dul baban dangiigsan maya oo gumaysi dooni mayo, qabyaala dooran mayo. doraad mid baan ahaa dayd owdan baan lahaa dulaan iyo colaad dabbaa laygu shiday. waxaanu doodayaa sadkii la duufsadiyo dibood la maagan yahay, la maaganaa dibood la maagan yahay. dariskiyo adduunka intaanu dooxanaado ma dago anigu ma dago, qarankanaga ma dago. dabaabaad hubaysan dabweyn iyo gantaalo nugleeraana ka daran oo waan dirirayaa. deegaanada dhulkayga anoon ku daabin calan, cawaale oon dul baban dangiigsan maya oo gumaysi dooni mayo, qabyaala dooran mayo.